بسم الله ويلكي هو يدي أي عنانتي كسو عراري ميل وقبتوايي حضرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أونسان دمانتين با ميل أدجوكتان با وحان إن لو ذاك دونا ويل ير هو يدي انتي أي isku dhaceen wiilkii markii loo diray iskuulkii iyo adigu garan kartaa ilmaha shaqo markii loo diray sida waxbarashada iyo adigu wixii loo dirsado uu ka soo bixi waayay wiilkaasi waxa dhacday inay hooyadii isku dhaceen waxay ku tiri guriga aniga iska leh orod iska tag oo meel kale aad ayay ku tiri wiilkii maalinkii uu iska tagay markii maalinkii magaalada iska dhex joogay oo iska dhex soo socday oo haday wax soo dhaweeyay waxa soo dhaweynaba uu magaalada uu dhex socday gabal ku dhacay oo qorraxda dhacday oo cid kasta ay aaday hoygeedii ama gurigeedii ay aaday ayaa waxa dhacday wiilkii marka meel uu galo ayuu garan waayay sababtoo ah wiilku cid kale ma yaqaano reer kale weliga oo ma hooyanin marka wuxuu sameeyay wuxuu yiri waa hooye maxaa samaysaa wuxuu sameeyay ganjeelki ayuu xilli 6 saac iska soo seexday meesha catabada ayuu seexday catabad markuu seexday waxa dhacday hooyo wax dhashay waad garan kartaa marka goor dambe ayay isxajin weyday way iska soo baxay waxay tiri warba intaas meelaha uu jiifee bal uu imo ganjeelkay furtay sawa asagoo jiifa ayay aragtay halkaas jiifa waxay sameeyay markaasi way kicisay way soo qaaday gurigay soo seexisay markay soo seexisay waxa dhacday in ay halkaas raashin iyo wixii sameysay qadiyadani adigu wiilkii arintii sidiisii buu sidhig u qabsaday hooyadii habarta way isfahmeen shaqada ayuu qabtay iyo wixii loo diray qadiyadan waxaan u soo qaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasta oo bini aadam ah dambi ayuu galaa maadaama dambi u galo سيد النبي عليه الصلاة والسلام أشاغي كل ابن آدم خطأ قف كستو ابن آدم والذنب قلب لي النبي عليه الصلاة والسلام وخير خطأون التوابون كوا ذنب قلا كوا وناسن وكوا ذنب مرهي قلان كسر لابتان أي النبي عليه الصلاة والسلام هل كاسي ويل كاسي مركو سيدا سميي محاضو مرين ربي سبحانه وتعالى انت ادم بك غشيد oo imika isla amarka wadana u soo laabatid maxay kula tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyada ayada asaga kaaga farax badan oo inuu dambigi intaad gasha dambi intaad gashid dambiga ka soo laabatid hooyada cunuga intay ku faraxday soo qaaday oo guriga keentay oo raashin iyo badar iyo gool iyo hoy siisay ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ayaa oga farax badan inuu adoonkiisa dambi galay ka soo laabto saadarteed wax culimadu waxa kale oo jirta xadiis kale oo macnihiisa uu ahaa maalmaha kamida ayaa waxa dhacday in uu nin am hooyaba dheh ayaa dadkii la soo qafaashay xilligii muslimiintii gaalada ay dagaalamayeen dad baa la soo qafaashay marka hooyo dadka kamid ahayd ayaa waxay ilmihii ku dhax lumay ilmihii bay raadisaa qolo cunug bay soo qabtay laabtay saartay way raadisaa way marka mar dambe goor dambe ayay waxay heshay cunugeedii ay heshay dad bay soo siisay laabta ayay saaratay sida ay u qanacdo sida darteed nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yiri islaanta sidaas ah ama hooyada noocaas ma filaysaan cunuga si u raadinay hada soo heshay
inay dab ku tuuri lahayd ma kula tahay maya ayaa yiri meelala tahay buu nabi cali meelala tahay inay hooyada cunuga sida u raadinaysay oo heshay oo walba harsaneed inay dab ku tuuri karto ama dab ku tuuri lahayd meelala tahay buu maya ay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim wa ardaahum ay ku jawaabeen nabiga wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa oga sii daran xagga naxariista inuu adoomadiisa dab uu ku daadiyo oo naar uu ku hubiyo maxaa yeelay dadka ayaka unbaa la kari laayahay inay xaqa qaataan oo xuduudii ilaahay subxaanahu wa tacaala u jideeyay ay ku leexdaan ay ka leexdaan saa darteed xuduudda ilaahay subxaanahu wa tacaala xadbud yuu jideeyey oo wadda ayuu sa u jideeyey waddada ninka ka tallaaba oo dhanka kale u gudbaa haddii wuxuu ku dhacay xuduudi shaydaankana meeshii xeradiisa iyo roobadii meeshuu dhiganaya waa la garan karaa waa meel aan wanaagsanayn oon habboonayn saa darteed waddada kalena waxaa weeye waa waddo wanaagsan oo wax ku ool ah sida darteed waxaa lagaga baahan yahay inaad tahay daawade ee xilliga aada joogtid waa xilligii aada ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ku xidhnaan lahayd oo waddadiisii aada qaadi lahayd kana weecan lahayd waddada shaydaanka iyo waddada aan wanaagsanayn dhammaantiin waad mahadsantihiin daawasho wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaa is arag dambe